sayar oo cajiib ah hiba amaar gabar la yiraahdo ayaa waxay tidhi markii aabahay hooyaday soo doontay wuxuu xifdiyay suuratu al-imraan ayadana ayuu meher uga dhigay markii aniga ninkayga soo doonay aabahay wuxuu ku yiri haddii aad gabadhayda rabto waa inaad hal suurad aad xifdisaa meher ahaan guurka ma dhacayo ilaa aan meherkayga helo waxaa la ii weydiiyay bay tidhi inaan suurad qabsado waxaan doortay suuratu nuur waxaan u doortay suuradda sharciyada ay ka hadlayso suuradda iyo kaloo in ay suurada adag tahay oo xifdiskeeda dhib badan yahay arooskii baa dhammaanteen ku wada mashquulnay alaab gadowgii iyo guri habayskiisii laakiinse ninkayga kitaabka quraanka gacantiisa kama maqnaan jirin oo kitaabka ayuu ku fuuray si uu xifdiyo suuratu nuur maalmo ka hor intaanan arooska la gaarin ayaa ninkayga aabahay u yimi si uu ugu aqriyo quraanka oo suuratu nuur oo xifdinayay uga baxo aabahay wuxuu ku yiri ninkayga haddii aad aayad qaladid ugu suuradoo dhan ayaad soo bilaabaysaa ninkayga wuxuu bilaabay in suuratu nuur akhriyo isagoo ku aqrinayo cod degan oo aad u qurux badan taasoo aan weligay hilmaamin doonin hooyadii aniga waa isfiirino oo isku dhoola cadaynaa annagoo sugayno inuu ninkayga hal aayad qaldo si uu soo bilaabo suurada oo codkiisa macaan aan ku raaxaysano isaga ajarkiisana u bato maadaama uu akhrinayo quraanka kariimka laakiinse Allah barakeeye suuratu nuur aad ayuu u xifdiyay oo hal aayad muusan qaldin markuu dhameeyay suuratu nuur ayaa aabahay habsiiyay oo u hambaliyay oo ku dhahay maanta gabadhayda ayaan ku guurinayaa maadaama aad ka soo baxday oo fulisay meherkeedii oo ahaa inaad suuratu nuur xifdiso ninkayga lacag ima uusan siinin meher ahaan dahab fara badan oo kumanaan kun ah u dhigmanay magadin wuxuu meher iga dhigay hadalka Ilaahay amaar waxay hadalkeeda ku soo gabagabaysato loo suuradee gabadhayda dooran doonta meher ahaan mustaqbalka fadlan haddaad xiisaynayso qisooyinka jacaylka ku xirnaa bogga Sham Media ee halkaasi nagala xiriir